dhulka ayuu xaar ka qaaday. Kadibna wuxuu arkay arrin cajiib ah. Ciidankiisa ayuu wuxuu ku amray in ay wejiga marsadaan xaarka. Dhulka ayay isku dejiyeen ayagoo isku dayaya inay ugaarsadaan geesiga. Farsamadaas oo la isticmaali jiray 20,000 oo sano ka hor. Nasiib wanaag 3 quraanyo ayaa ninkii gacantiisa ku degday. Isla markiiba wuxuu bilaabay inuu cuno quraanyadii. Hogaamiyihii wuxuu amray in la weeraro lo'da. Lo'dii sidoo kale waxay bilowday in ay iska difaacdo. Markay isku soo dhawaadeen, kooxdii waxay bilaabeen inay warmaha ku tuuraan lo'da si ay u xanibaan. Lo'dii ayaa kala wareegtay, waxayna u ordeen dhankaas iyo deegaanka ayagoo ka dhacay buurtii dheereed. Boqolaal lo ayaa ku dhacday buurta. Ugu dambeyntii mid ka mid ah lo'dii ayaa weerar ku soo qaaday kooxdii, waxaana uu bilaabay in uu weeraro inanka hogaamiyaha kooxda. Geesihiisa ayuu ku dhuftay asagoo dhulka ku garaacay. Wiilkii koodii ahaa lo'dii ayaa bilowday inay u jiido wiilkii dhankaas iyo buurta. Aabihii asagoo raba inuu wiilkiis badbaadsado ayaa waxa uu ku gamay waran. Halkii la ka rabay in ay lo'dii istaagto, taa beddelkeeda waxay bilowday inay xawaarihii ku sii darto. Lo'dii ayaa ka tuurtay wiilkii koodii ahaa buurtii. Kooxdii marka ay ku soo duldegeen, Cole ayaa waxa uu ka laalacshumayay dhagaxa buurta. Aabihiis ayaa ku qayliyay in uusan isdhiibin. Cole ayaa dhacay asagoo si xun ugu dhacay dhulka. Cole ayaa ku dhacay dhagax ku yaalo buurta dusheeda. Aabihii ayaa isku dayay inuu ka dababoodo, laakiin kooxdii ayaa celisay. Waxayna ku yiraahdeen wiilkaaga hadduu dhintay adnaha ka daba dhiman. Kooxdiina waxay bilaabeen in ay lo'dooda iska urursadaan. Ay ugaarsadeen. Aabihii ayaa wiilkiisii Cole ka samri waayay asagoo ilaa habeenkii dul taagnaa dusha sare ee buurta. Maalintii xigta wiilkiis ayaa waxa uu u taagay 2 dhagax oo taalo ah, asagoo aaminay in wiilkiisa geeriyooday. Waxyar kadib markuu aabbe baxay, shimbir ayaa ku soo duldegtay wiilkii yaraa ee Cole ahaa. Cole ayaa ku soo kacay asagoo iska tuuray shimbirtii. Cole ma uusan dhiman, laakiin taa beddelkeeda waa uu miir daboolmay. Waxa uu isku dayay in salka buurta uu si nabadgelyo ah ku tago, laakiin dhagaxyadii ayaa la sii badan. Isagoo ka laalacsoomayo buurta oo haysto dhagax yar, hoos ma aadi karo, korna ma aadi karo. Roob ayaa bilowday, taasi oo keentay in buurta hoosteeda ay biyo fadhiistaan. Kootina arrintaa wuxuu ka dhex arkay fursad. Waxa uu go'aansaday inuu isku tuuro biyahaas. Dadaal dheer kadib, Cole ayaa ka soo badbaaday biyihii, laakiin nabarka ku yaalla lugtiisa ayaa ka sii daray. Oon daraaddeed waxa uu ku soo duldegay meel ay biyo fadhiyaan. Lugtiisa ayuu wuxuu arkay iyada oo burburtay, meelaha dhaadheer uu ka soo dhacay awgeed. 2 dhagax ayuu hareeraha ka dhigay lugtiisa, isagoo isku dayay in uu toosiyo. Waxa uuna ku xiray alwaaxyo si uu u soo dedejiyo inay ka mato lugtiisa. Waxa uuna soo fuulay xagga sare ee buurtii ka dhacay. Waxa kaliya uu arkay wuxuu ahaa taaladii loo sameeyay, isaga oo loo maleeyay in uu geeriyooday. Taasi oo ka caraysiisay Cole. Isla markiiba wuxuu arkay koox yey ah iyada oo soo ceersatay dhankaas iyo geedka ayuu u cararay si uu u badbaadsado noloshiisa. Yeydii ayaa lugaha ka qabsatay, waxaana uu soo baxsaday dhagaxiisa asagoo oo ku dhuftay yeygii. Si nabad ah ayuu xagga sare ku fuulay. Yeydii ayaa ilaa ay subaxii hoos taagnaa ninkii, waxayna ka tageen yeygii uu dhaawacay Cole. Cole ayaa waxa uu samaystay waran asagoo damacsanaa in uu u dhameeyo yeygii, laakiinse marka uu maqlay yeygii oo oynayo, qalbigiisa waxaa ku soo dhacay naxariis yar. Wuxuu ahaa nin ka cabsada xitaa in uu lo'da dilo. Sidee buu u dili karaa yey? Cole wuxuu go'aansaday in uu badbaadiyo yeygii. Xadhig ayuu qabsaday asagoo afka ugu xiray yeygii, waxaana uu geeyay webiga asagoo ka soo dhaqay nabarkiisa. Waa uuna daaweeyay yeygii. Gacmihiisa ayuu ku soo qaaday yeygii. Cole marka uu soo kaxay wuxuu arkay yeygii oo iska furay xadhiggiisa afka ku xirnaa. Cole ayaa argagaxay, waxaana uu go'aansaday in uu biyihii la qaybsado yeygii. Yeygii ayaa bilaabay in uu muujiyo cadowtinimo, isaga oo ka cabsanayo Cole. Isku day badan kadib,
kooli ayaa ku guulaystay inuu ku qanciyo yeygii inuu biyaha cabo. Yeygiina ayaa cabay biyihii. kooli ayaa daweeyey nabarkii yeygii. maalintii xigtay kooli ayaa wuxuu helay bakayle. dhagax ayuuna ku dilay. kooli ayaa dib ugu soo laabtay godkii. waxa uuna bilaabay inuu dab shido, laakiin yeygii ayaa isku dayay inuu ka xoogo bakaylihii. laakiinse kooli ayaa afka ku dhuftay yeygii. waxa uuna u sheegay yeygii inuu yahay asaga hoggaanka, uusanna ku soo hadloomin. yeygii ayaa si dullinimo ay ku dheehan tahay dhulka u fadhiistay. kooli ayaa dabka shitay, waxa uuna ku karsaday bakaylihii. lafahana waxa u tuuriyey yeygii. iyaan kadib kooli iyo yeygii ayaa ka soo kabsaday dhaawacyadooda. kooli wuxuu ku khasban yahay inuu reerkiisa ku laabto inta aysan xilliyada qabowaha aysan bilaaban. inta uusan baxayn ka hor waxa uu macsalaameeyey yeygii, laakiin yeygii ayaa soo dabagalay isagoo diiday inuu ka haro kooli. kooli ayaa bilaabay inuu bakhtiingeliyo yeygii si uu uga haro, laakiin way u suurtagal weysay. ugu dambeyntii kooli ayaa iska aqbalay inuu soo raaco yeygii. saaxiibtinimadii yeygii iyo kooli ayaa zaa'iday. habeenkii way isdugaasi jireen si ay qabowga iskaga celiyaan. waxayna aadeen meel webi u dhow si ay u soo qubaystaan. yeygii ayaa xitaa waxa uu qabsaday kalluun. nasiib darro, xilligii barafka ayaa ku soo galay kooli isagoonan reerkiisa helin. waxaana uu bilaabay inuu sii wato safarkiisa ee dhankaas iyo guriga u socday. kooli ayaa u cararay dhankaas iyo yeygii. koolina waxa uu ku dhex dhacay dhankaas iyo barafka oo ay biyo ka hooseeyaan, biyahaasi oo ah kuwo zaa'id qabow u ah. yeygii ayaa isku dayay inuu badbaadiyo isagoo jebinayo barafkii. waa u suurtagal weysay. iyada oo ay wax yar u harsan yihiin, kooli ayaa bilaabay inuu mindidii ku jebiyo barafkii ka sarreeyey. waxaana u suurtagashay in si nabadgelyo ah uu ka soo baxo barafkii. heerkulka ayaa waxa uu ka hooseeyey dhankaas iyo eber. yeygii ayaa bilaabay inuu leefleefo wejigii kooli si uu diirimaad u helo. kooli ayaa iska qaaday dharkiisa isagoo ag seexday dhankaas iyo dabka si uu diirimaad uga helo. markaani yeygii ayaa soo raacay isagoo go'aansaday inuu wehliyo. cimiladii ayaa sii xumaatay, waxaana ka soo horbaxay koox dhurwaayaal ah. taasina waxay keentay in kooli iyo yeygii ay ka baxsadaan dhurwaayadii. kooli iyo yeygii ayaa waxay ka galeen meel god ah ayagoo islahaa meeshaana kaga badbaadaysaan. waxaana soo weeraray shabeel. shabeelkii ayaa ku soo booday koole, laakiin durbadiiba yeygii ayaa ka hortagay. dagaal dheer kadib, sida ay isku dagaalayeenbe, kooli ayaa bilaabay inuu warankiisa ku aadiyo shabeelkii. waxaana u suurtagashay inuu shabeelkii ku dilo warankiisa. dagaalkii waa uu dhammaaday, laakiin yeygii ayaa tabar dhigay. kooli ayaa bilaabay inuu daweeyo yeygii naftiisa u huray. horey ayuu u socday. koolina waxa uu dareemay inuu u soo dhowaaday reerkii. alfa ayaa zaa'id dhaawac u noqday isagoo ay ku adkaatay socodka. alfa ayaa dhulka ku dhacay tabardari awgeed. yeygii ayaa dhulka ku dhacay tabardari awgeed. kooli ayaa dhabarka saartay yeygii. si ula socdayba uu buuro dhaadheer ka degayba. ugu dambeyntii waxa uu arkay reerkii. yeygii asagoo sito ayuu reerkii u galay. reerkii ayaa ka yaabeen waxa uu sido ninkii kooli ahaa. waxa uuna farta ku fiiqay yeygii asagoo ka codsaday in ay badbaadiyaan noloshiisa. kooli marka uu soo ficnaaday waxa ugu fadhiisa uu arkay wuxuu ahaa yeygii. alfa wuxuu ahaa mid noloshiisa ay khatar ku jirtay. yeygii ayaa waxa uu dhalay cunug yar. koolina wuxuu ogaaday in yeygii ay uur lahayd marka ay la socotay. iyaan dheer kadib, kooli iyo yeygii ayaa caafimaadeen. daawadee muuqaalkeena meeshan ayuu ku egyahay.